سلام عليكم maalin wanaagsan. caadooyinka hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed waxa kamid ah bilaawida maalinta inay ku bilaabaan nadaafadda. Waaga markuu iftiimayo guryaha hortooda waxa ku arkaysa hooyooyin gabdho kuwaas oo nadiifinaya guryaha banaankooda iyo gudahoodaba iyagoo isku soo ururinaya qashinka dhinac kuna ridaya bac iyo jabaan ama ka codsanaya inuu god u qodo ninka ku naadiyo godka qashinka. mararka qaar taa ka horteed ayaa waxa imaanayso dabeelo oo qaybinaysa qashinka ama xayawaano sida lo'da, ariga ama doorada, digaaga waxay kala fardhinayaan qashinkii la soo xaaqay oo la ururiyay. mararka qaar dariska qaar ayaa si kasta waxay ugu daadinayaan qashinkii la soo ururiyay agagaarka dariskooda. sidaas darteed ayaa waxaa dhacaysa dagaalo u dhaxeeya darisyada. hadda ku soo wareegto magaalada dhexdeeda waxaad ku arkaysaa wadooyinka xaafad walba inay daadsan yihiin qashin. mararka qaar ayaa dhulka waxa ka soo muuqanaya haraaga qashinkii la aasay. markuu roob yimaado ayaa biyaha roobka waxay soo faagayaan qashinkii la duugay taasoo jaraysa wadooyinka. ma ahan qashinka keligiisa waxyaalaha keena dagaalada u dhaxeeya dariska. sida caadiga ah xaafadaha qaar ayaa dharka waxay ku dhaqdaan wadooyinka kuna qalajistaan cadceeda iyagoo adeegsanaya xarig lagu gooyay wadada si ay ugu wartaan dharkooda. darisyada qaar ayaa waxay ka cawanayaan biyaha ama oomada soo agmaraysa hortooda ee mararka qaar adag tahay inay ka soo baxaan guryahooda. qaarna biyihii ka soo haray alaabtii ay soo dhaqin ayay ku soo daadinayaan wadada. taa ayaa sababaysa dagaal u dhaxeeya dariska. dagaalada dariska waxaa keenoo kale carruurta binooniga ama kubadda cagta ku ciyaaraysa guriga hortiisa dhex bartamaha wadada. mararka qaar ayaa ku garaacayaan darbiyada dariska ayaa taa ka caroonaya wuxuu qabanayaa kubaddii ama binoonigii wuuna jexjeexaya ama mararka qaar ayay garaacayaan carruurtii ku ciyaaraysay guryahooda gadaashooda. taa oo dhalinayso dhibaatooyin u dhaxaysa dariska. dhibaatooyinka daris ayaa waxaa kaloo keeno kuwa galabtii ag fadhiista guryaha hortooda oo ku xamanaya dariska soo agmaraya iyagoo ku qosqoslaya taasoo ay ku tilmaamaan xanfareesh. afartaasi qashinqubka, biyaha dharka, kubadda cagta iyo xanfareeshta galabtii ayaa ah waxyaalaha ugu badan oo keena dagaalka u dhaxeeya dariska Soomaaliya. balse dagaalka darisyada Yurub ka dhexdhexeeya aad ayuu kaga duwan yahay guud ahaanba kan Soomaaliya. ilaan Yurub waxaa la xaliyay dhibaatada qashinka oo lagu gaar yeelay guri u gaar ah inkastoo dadka qaar aysan adeegsanin guryahaas gaarka ah ee loogu talgalay qashinka ayay dhigayaan horta ama dhinacyada guryaha loogu talgalay qashinka. marka ayaa imaanayso shimbir oo kala fardhinayso qashinka deedna dabeel ayaa dhammaystirayso qashinkii ayay u qaybinaysaa dhinacyada ilaa ay soo kormaraan cawska korkooda. naag ajnabi ah u shaqayso nadaafadda ayaa igu tiri ajaanibtaani waxay ka soo qaxeen waddamadooda waxay yimaadeen waddan nadiif ah haddana way wasaqaynayaan. waxaan ku yidhi waad saxan tahay. sidoo kale ayaa Yurub waxay ku xalisay biyihii dhexmaraya waddada tubooyin hoos maraya dhulka korkooda siday ahaan jirtayba Soomaaliya 30 sano ka hor. Yurub ayaa dhibaatada binooniga kubadda cagta carruurta dheelan ku xalisay garoomo fara badan oo ku yaala xaafad walba. waxaa kaloo Yurub lagu xaliyay dharwaridda iyadoo loo diyaariyay khasaalado fara badan oo ka heli karto ku dhawaadba guri kasta ama khasaalada dhar oo la balansado 4 jeer bishiiba. dhibaatooyinka dagaalka daris Yurub ayaa ah mid ka timaado codadka guuxa xoogan sida burus in lagu garaaco darbiyada ama shanqarta waxyaalo culculus aad dareemayso sida gurigaba inuu kugu soo dumayo. codadka ay adeegsadaan waxaa kaloo ka mid ah tubooyinka biyaha qaylidooda ama dagaal iyo legdan qayle ka dhex yeeraysa qoysada dhexdooda. mararka qaar ay adeegsanayaan muusikada inay kor u qaadaan codadka muusikada laga maqlayo ilaa aad malayso inuu wadnaha ka soo dhacayo. sidaas darteed ayaa shirkadda guryaha waxay mar qaybisay warqado ay ku sheegayso dadka xaafadda degan inay gaabiyaan codadka muusikada si ay u ixtiraamaan dariska ku agdhow. ilaan darbiyada u dhaxeeya guryaha ayaa ah mid safiita ah oo aad la iskaga dhex maqlayo. darisyada qaarna waxay adeegsanayaan eeyo oo aad ka naxaysa arigooda aad moodo inay ku cuni doonaan. mararka qaar ayaa darisyada waxaadan ka maqlaynin cod ama erayo balse waxay adeegsanayaan qalab jaasuus sida kaamirooyin ama inay jabsadaanba moobilkaada iyo laabtoobkaaga si ay wax u jaasuusaan. inkastoo ay ku kala duwan tahay jaasuusida qaabka iyo hadafka ujeedka ay ka leeyihiin sida hore u soo xusnayba haddana waa dhibaatooyinka ka mid ah dhibaatooyinka darisyada isku dagaalaan. dhibaatooyinkaas kala duwan aan soo sheegnay oo ka timaado dariska Soomaaliya ama habka ay isticmaalaan reer Yurub ayaa mararka qaar waxay ku siinaysaa go'aan sida ninkii u yimaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam. nin baa jaarkiisa ka cawday dabeetana ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi inna lii jaara yu'dini. ilaahay rasuulkiisa waxaa leeyahay mid ii jaara oo dhib igu haya daris dhib badan ayaan leeyahay buu yidhi maxaan yeelaa. nabigu talu siiyey alaabtaada intaad soo urursato bannaankaa dhigo bannaankaa fadhiisa buu yidhi waddadaa dadku maraya oo dadku markay kuu yimaadaana la yidhaahdo war maxaa kugu dhacay u sheeg. ninkii sidii taladii nabigu qaato intuu alaabtiisa qaato halkaa bannaanka fadhiistay war maxaa gurigii kaa soo saaray waa maxay dhibta ku haysataa war mid halkan aan gurigii kaga jiri waayay buu yidhaahda mid baa soo saaray ciddii soo martaaba way habaartaa war habaar qabaani muxuu ah dadka guryahooda inay deganaadaan u diiday siday u wada naclanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay. wuu u yimi oo wuxuu yidhi war niyahow irjic ilaa manzilik fa wallaahi laa udiik. war niyahow gurigaaga iskaga noqo dib kuu dhibi maaye bulshadii dib kuu dhibi maaye gurigaagii iskaga noqo. waxay dhahaan xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusiyey mujtamacu
مسألة لا سمي ووقاية للمجتمع الذي راقب ما حدث وحي إلى لنقطة هي بلشدة كله وحاسك ولا هدات سمايسين وحاسك وقلنا عيان نيتهاي وحي كلا قطهاي درس إنك كان لجوع عليه ننكي وحدي بيجي وحكف الله ذي بلشدة عداد سكيدي برشر كي بلشدة كويسي هي كان إنه نكن كفو قوس كدايو حكمة كجرت الدرس كشرعه ونوجع علينا يحقوق ذي سئل إلى عليه وحول درسكو هدو إسحاق دوره مقالة قف أن درس الله ينمجرته قف والبهدي درس كذا أن حريسته أو يحق دورته وحيمنا مقالة دي يردانو أمني هالشيء مقالة دي يردانو إس احترام يسا مقالة دي يردانو إسن حريسنا يسا مقالة دي يردانو إس حشمين يسا إيمانا يسا مقالة ينك كلي وضمدا كلان واسدا سو كلي marka xigmadaas ku jirta dariska ilaalintiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay inuu yiri wallahi la yu'min wallahi inuusan rumayn ilaahi uusan rumaynin wallahi la yu'min saddex goor nabigu ku celceliyay sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi uu yiri iimaan malahan xalay rasuulka ilaahi waa kuma qofka saddex goor aad ku celcelisay oo tiri iimaan malahan من لا يأمن جاره بوائقه قفك الدرس كيسو وسن أمان كهلين والله نوسن إيمان لهين بوير النبي صلى الله عليه وسلم waxaad doqonnimaha inaad u adeegsato waqti kaaga haray dunida inaad ku dhibto dariskaaga aad moodaba sida inaad ku qaadato mishaar dhibida dariska daandaansi daris hamoodin darajo maalin wanaagsan salaamun calaykum